hay'adda ciidamada xoogga Puntland BSF ayaa deeq biidhaaminaha waxa ay u sameysay barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala duleedka bari ee magaalada Boosaaso waxaana deeqdan biidhaaminta ka faa'iideystay boqolaal qoys oo ku nool kaamamkaasi mas'uuliyiinta hay'adda ciidamada ammaanka Puntland BSF ayaa sheegay in ujeedka biidhaamintan loo sameeyay ay tahay sidii ay biyo nadiif ah u heli lahaayeen dadka ku nool kaamamkani maadaama lagu guda jiro xilli xagaa dadka ku nool kaamamkani ay dhibaato weyn ay ka haysato helidda biyo nadiif ah إلهي بما هذا أسوأته وأباهنا بيا لو باهن يهوي عافيماتك كجرا عرورك عافيماتك هذا كجرا بيا ولا لا ينوكينا أقوم هذا قينا لا عقبنا لك قادة براجا وأنا أنا هاي كبلشة أهان أما كام أهان بلومجس أهان معها مالنت نوجه رئيسي ما نقول دوت مالنت نوجود دم بيسي نس يلا نسوق قارتك عنت هيدا BSF لنا عكست بيضاء حدي أي تاي حاجة أمنية haddii ay wax yar dhacaan way noo nugul yihiin qolada booliska way noogu dhow yihiin waanu isu dhownahay dirisna waanu tan labaad maantay sida aad u jeedaan waxaa nala jooga iyagoo noo keenay biyihii macaanaa oo free ah waan wax shuruuda ku jirin dadkuna aad iyo aad bay ugu faa'iideysteen annaga weligeena kaalmo iyo wax walba waan sii jirtay biyaan hore baan loo sii jiray iyo wixii ma artay lamid ah maanta laakiin hadda biyihii waa noo bilowdeen boqolkiiba boqol alxamdulillah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay awalan waxaan mahad gaar u celinayaa ilaahay kasakoon waxaan mahad u celinayaa hay'adda BSF iyo ciidanka heeganku oo cadceedan noo taagan inay biyo nasiyaan waxaan ka midnaa dadka biyada nasiibka u yeeshay inay biyo macaan ay helaan waa sida taliyuhu u sheegay waa soo dhaweynaynaa biyaha dadkaas loo keenay maadaama hadda kulayl jiro oo shuban iyo wax jiraan daawadiina way soo raaciyeen waa ku soo dhaweynaynaa waana gacanay mar walba ka geystaan kaamanka dadka barakacayaasha ah waana ku mahadsan yihiin dhinaca kale dadweynihii ka faa'iideystay deeqdan biidhaaminta ay sameysay hay'adda ciidamada ammaanka Puntland BSF ayaa ka warmay sida ay ugu baahanayeen biyahan helistooda maadaama ay yihiin biyo nadiif ah ayagoona markaas isticmaala biyaha qaraar oo mararka qaar aanay awoodin iibsigooda aadan ugu mahadcelinayna waxaan leenahay markasta inay noo keenaan aan rabnaa biyaha inuu ilaahay igana garabkooda u galo markastana way noo keeni jireen walaalka waxaan ka soo doonay biyo alfardoos aan u shubano waa biyo macaan alfardoos waxaan maad celinaa askarta noo keentay anaga biyaan awalba anaga haysan aan gada jirnay haddana aan ilaahay waxaan ka madinaynaa askarta noo keentay maanta anaga biyaan haysanin baan ilaahay ka barinaa ilaahay markasta nagu soo dhigo biyaan bay gacan noo siiyeen biyo bay noo keeneen waana soo dhaweeyeen waana la shaqeeyaan annana waan la shaqeynaynaa waliba waxa u fiican kaamanka oo u dhegdheer dumar haddaanuna habeen iyo maalin waa shaqeynaa habeen iyo maalin guryaha waa ku wareegnaa ugu dambeyn agaasimaha waxda arrimaha bulshada hay'adda ciidamada ammaanka Puntland BSF Cabdiqaadir Cali Xirsi ayaa ballan qaaday in dhammaan deeqdaba ah la gaarsiin doono kaamamka barakacayaasha ay ku nool yihiin ee ku yaala duleedka bari ee magaalada Boosaaso inaanu dadweynaha in aanu bixino daawooyinka mudane gudoomiye iyo mudane shacabayaal waxaanu dhigi doonaa MCH-ka haddii alla idmo lagana maamuli doonaa sidii caadada ahayd maamulkiina iyo daaweyntiinana halkaa waxyaabihii kalooraha iyo shubanka lahaa ee cabashooyinka iyo ayna soo gaareen sida mas'uuliyiinta iyo gudoomiyuhu iyo bahda caafimaadka naga soo gaadhay waxyaabihii shubanka ahaa iyadoo cimiladu soo dhowdaay moodo in lagu soo jiro ama amintuba ay gabaabsi tahay waqtiyada kulku Cabdi Aziz Daacad magaalada Boosaaso.